shirkadda Tawakkal Express oo adeeg cusub ka daahfurtay magaalada Garowe sidoo faafaynta warkan inuu weegayo waryahayga Axmed Sheekay oo nooga soo diray magaalada Garowe. shirkadda xawaalada Tawakkal Express ayaa Garowe ku daahfurtay adeeg cusub oo loogu magac daray T+ waana adeegii ugu horeeyay shirkad Soomaaliyeed ay soo bandhigto waxaana uu bulshada u suurtagelinayaa inay ku isticmaali karaan xawaaladahan iyo waliba moobilkooda iyagoo dalka gudihiisa iyo dibadiisa jooga. علي سعيد محمد ماريا سوقينتا بنجيga Tawakkal ayaa tilmaamay in adeegani uu kaga duwan yahay adeegyada kale in adeegan uu isticmaali karo xawaaladahan iyo waliba moobilkaaga adigoo dalka gudihiisa iyo waliba dibadiisa ku sugan si aan marka dalka dibadda aan ugu saarno ummadayadana aan u fidino adeegyo cusub oo hadeertaan kuwa loo fidiyo kuwa ka duwan ay shirkadda Tawakkal caawa magaalada Garowe caasimadda Puntland ay ku soo bandhigaysaa barnaamij cusub oo la yiraahdo T+. Tawakkal waxa ay bixisaa adeegyo aad iyo aad u tiro badan kuwaas oo isugu jira amaanada dalka gudihiisa xawaalada oo dhinac walba isugu jirta adeeg la yiraahdo Tawakkal oo 3 sano ka hor runtii aan halkan ku soo bandhignay barnaamijka Tawakkal ayaa ka horeeyay kan hadda aan sameynayno mareeyaha guud ee bangiga Tawakkal Soomaaliya Maxamed Cali Jaamac ayaa dhankiisa tilmaamay in adeegan uu qof kasta u sahlayo in lacagtiisa oo la tagi karo meel kasta oo dunida ah isagoo ku isticmaalaya adeegga T+. shirkadda Tawakkal iyo xawaaladaha waxay soo mareen kala rag igu horeeyo saaxiibada ay ka soo sheekeeyeen waqtiyo badan baa la soo maray aad u kala gedisanoo mar lacag la soo qaadi jiray iyo mar fax lagu soo diri jiray iyo mar hadda ay noqotay daqiiqad wax ka yar inay xawaaladu ku yimaadaan haddana waxaan kuleynba anaguna ku sii darnay in qofka aan jeebkiisa u galino adeegii iyo inuu lacag dirsado iyo inuu lacag qaato kullaba aan jeebkiisa u galino oo asagu meeshuu doono adduunka international aan ka dhigno qofku meeshuu doono uu la tago lacag diristiisa iyo lacag qaadashadiisa baan ku soo korinay shirkadda Tawakkal waxay halkan kale oo ku soo bandhigi doontaa insha Allah hadii la hayno awalna ay ka qayb qaadan tahay arrimaha bulshada haddana ay doonaysaa inay si mug weyn uga qayb qaadato ayna ugu yaboohdo gudiyada abaaraha Puntland iyo dhismaha garoonka Puntland dhismaha garoonka Garowe waxay marka shirkadda Tawakkal ay soo bandhigi doontaa insha Allah hadii la hayno yaboohyadaas ay u sameyn doonto ganacsato culimaawidiin xildhibaano iyo waliba maamulka degmada oo cidbaahiyaha lagu soo dhaweeyay ayaa xusay in barnaamijkani uu horumar weyn soo kordhiyay waan maqlayay in la yiri waagi horena waa soo bandhignay kana waa keenay tiknoolajiyaduna hore u socotaay oo daba taaganahay waxa laga yaabaa muddo kooban wax kale oo casri ah keeno iyadana waa idinka sugeynaa insha Allah hadii Allah wadalidno laakiin dhinaca kale adduunka waxay u soo saareen oo ay bareen inay yihiin in la noolaan karo dawlad la'aan dadka sababtu u noqday sida inay dhacdo waa ganacsatada hormuudka u yihiin xawaaladayaasha iyo shirkadda Tawakkal waxaad ogaataan dadka waxa weeye waxa shiraayiga ka shaqeeya Puntland waxa weeye waxa lagu qiimeyn doonaa wuxuu noqonayaa hadba siday dalkooda u qurxiyaan dadkooda ugu dhimriyaan haddii wax kasta oo maaragtay sidan oo kala ah oo horumar ah oo bulshada ku soo kordha waxa weeye cidii la timaada in loo mahad celiyo waa wax muhiim ah weeye xaq bayna u leedahay waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed adeegan yaani jeebkeena leeynoo galiyay inaynu maaragtay Australia iyo maaragtay New Zealand iyo Canada iyo maaragtay aynu sida aynu maaragtay Garowe dhexdiisa lacag isugu dirayno inaan lacagta isugu diri karo hadda waxa weeye waa horumar weyn oo soo kordhay shirkadda Tawakkal oo la aasaasay 17 sano ka hor ayaa kamid ah shirkadihii ugu horeeyay ee dalka ka hirgeliyay adeegga xawaaladaha waxaana maamulka shirkadda sidoo kale ay goobta kaga dhawaaqeen in ay $15,000 ugu deeqeen gurmadka abaaraha iyo dhismaha garoonka diyaaradaha Garowe iyagoona jeegaga lacagtaasi ku wareejiyay gudiyada u xil saaran Axmed Sheekay warbaahinta SBC Garowe.